qiyaamadu waa goorma qiyaamada dhicitaankeeda waa goorma waa u tagi doonaa jawaab ma leh laakiin waxa weeye qiyaamada iyo inay imaanayso iyo inuu dhimanayo iyo in adduunkani dhammaanayo iyo inay nolol dambayso iyo in ilaahay loo tagi doono iyo in la isla xisaabtami doono mar walba inay qalbigaaga ku weyn tahay oo xusuusnaato saas daradeed ba su'aalaha saxaabada waxa ku badnaa iyo ardadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inay weydiiyaan qiyaamada iyo wax ku saabsan maxaa yeelay adduunkan iyo kownkan wax sugayo soo socda oo qiyaamada ka weyn ma jiro as-saa'atu adha wa amar daahiyo iyo musiibo ka weyn qiyaamada oo soo socota ma jirto saas daradeed inaad aad isu weydiiso oo xaalkaaga isu warsato oo maxaad ku dambayn doontaa aad bay muhiim u tahay Allah tabaaraka wa ta'ala anbiyadiisa qaar kamid ah Ibrahim iyo Isxaaq iyo Yaqub wuxuu ku amaanay in ay arin khaas ah oo gooni ah oo ah inay daarta aakhiro xusuustaan xusuusta daarta aakhiro waxa ka dhalanaya saameyn weyn bay waxay ku yeelanaysaa ruuxa noloshiisa qodobkaasi marka waa muhiim adduunyadu yeysan kula tagin yeyna ku mashquulinin yeyna ku halmaansiinin xusuusteeda badi faa'iidada labaad ee xadiiska ku jirta waxay tahay qiyaamada xilligay dhacayso cilmigeeda ilaahay baa khaas la ah nabi maxamed waa ka jawaabi kari waayay sallallahu alayhi wa alihi wasallam isla su'aashaasa nabiga waxa weydiiyay malakul jibriil asagoo nabigu saxaabada la fadhiyo malakul jibriil oo nin bini aadana iska soo dhigo isu soo ekeysiyay ayaa su'aalo dhowr oo nabigu weydiiyay waxa kamid ahayd qiyaamadu waa goorma maxamedow iiga waran nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam al mas'uulu anha bi'a'lam min as-sa'il kan la weydiinayo iyo ka weydiinaya qiyaamadu goortay dhacaysa waa ka siman yihiin waxna kama oga anuguna waxba ka garan maayo adna wax ka garan mayso jibriil ma garanayo nabi maxamedna ma garanayo cilmigeedina ilaahay buu khaas u yahay goortay dhacaysa iyo say u dhacayso laakiin waxa laga waramay dhacdadaasi weyn ee adduunka gilgili doonta siday u dhacayso waxba la inaga siiyay laakiin xilligay dhacayso ilaahay baa og tabaaraka wa ta'ala faa'iidada saddexaadi waxay tahay nabigu sallallahu alayhi wasallam taamarku ka leexiyay acraabiga su'aashu meeshay ku haboonayd buu u tilmaamay wuxuu ku yiri maxaad u diyaarsatay buu uga jawaabay waana su'aashu meesha la doonayo inay gasho goormay dhacaysaa way u dhici doontaa ama qiyaamada yar han noqoto ama taweyn han noqoto qiyaamada yar ruux walba geeridiisa maalintuu geeriyoodo qiyaamadiisii way dhacday maxaad sugi hadday cadaab ahayd kugu bilaabay hadday barwaaqiyo janno ahaydna kugu bilaabatay qiyaamo adduunka ka dhacdo baabi'isa taadii yarayd baaba ka soo horreysa way dhici waana hadda tii weyneed ee adduunkoo dhan rogaysayna way soo socotaa wayna imaan saas daraaddeed goorma waxaa kaaga muhiimsan inaad weydiiso maxaa kuu diyaarsan kolley way imaan laakiin maxaa kuu diyaara maxaad haysaa maxaad la qaabili maxaad u hormarsatay saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa ta'ala mu'miniinta wuxuu amray mu'miniinow ilaahay ka baqa naf walbana ha fiiriso waxay berri u hormarsatay oo qiyaamada ah maxaa ka horeeya maxaa yaala maxaa kuu diyaarsan isweydii maxaa cibaado ah maxaa camal ah maxaa wanaaga maxaa khayra maxaa gabood fal war maxaa kuu yaala taasuu nabigu u jeediyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waana su'aashu meesha la doonayo inay marto faa'iidada afraadi waxay tahay qisada aynu ka faa'iideysanayno ruuxa bini aadamka ee muslimka si kasto u dadaal badan yahay inuu naftiisa iyo camalkiisaba xaqiro inuu isyaso hoos isu dhigo isla weynaanin is afuufin isbumbuurinin camalkaagu kula weynaanin nabigu markuu ku yiri ninka saxaabiga maxaa ku diyaarsan wuxuu yiri waxba riwaayo kale wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay wax weyn iyo ma diyaarsan riwaayo kale waxay leedahay wuxuu yiri rasuulka ilaahay waxaan isku ammaano ma hayo soom badan iyo salaad badan iyo wax badan ma hayo ninku waa saxaabi inaad nabi maxamed aragtay oo la kulantood rumaysay oo arday u noqotay ba amal loo dhiga aan lahayn wax walba ka muhiimsan
haddana maca daalika wuxuu rasuulku ilaahay wax weyn ma hayo nacam maxaa yeelay waxa aad samaynaysaay su'aalo badan baa ku wareegsan wixii lagaa rabay ma yahay sidii lagaaga rabay ma u qabatay nicmadii ilaahay ma u dhigmaa waxyaalo badan baa ku wareegsan waxoogaa yarood samaysay marka inuu kula weynaadood isbuunbuunisood is afuuftaay maya allah wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala naftiinna ha ammaanina ilaahay baa idin ogsoon waxba diintaada iyo camalkaaga ilaahay uga warramin isaga kaaga xogaalsan naftaada saas daraaddeed baa saxaabigu wuxuu yidhi waxba ma haya rasuulka ilaahay hal khaslo oo faa'iidada shanaad ah ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclahay ma sahlana inaad ilaahay jeclaato wad rasuulkiisa jeclaato ma sahlana saas daraaddeed baa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi arrintaasi weyneeyey wuxuu ku yidhi cidda aad jeceshahay baad la meel tahay saxaabadu arrintii waa ku farxeen annaguna ma la qabnaa rasuulka ilaahay haa waxay ku farxeen oo kale taasaa ugu weyneyd islaamnimo kadib waxay ku farxeen maxaa yeelay cidday jecel yihiin bay garanayaan allah bay jecel yihiin rasuulkiisay jecel yihiin jacaylkooduna sheegasho ma ahee xoolahoodii naftoodii wakhtigoodii waxay heli kareen bay ilaahay iyo rasuulkiisa siiyeen way bixiyeen haddayna ilaahay rasuulkiisa jeclayn dhammayna bixiyeen sidaas daraaddeed bay ugu farxeen qaacidadu waxay tahay marka waa faa'iidada muhiimka ah jacaylka adiga yaad jeceshahay isweydii haddaad jeceshahay allah rasuulkiisa saxaabadii nebi maxamed mu'miniinta dadka jidka haya haddaad jeceshahay ood ayaga la jirto ayagaad la meel tahay maalinta qiyaamada haddaad kuwaa ka jirto gaalada iyo cadaada ilaahay jecesha munaafiqiinta jecesha calmaaniyiinta jecesha diinlaawayaasha jecesha fujaarta aad jeceshahayna ku talagal maalinta qiyaamada kuwa unbaad la meel noqon doontaa qaacidadaasuu nabigu dhigay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isweydii marka yaad jeceshahay yaad la jirtaa yaa qalbigaagu la jiraa yaad rabtaa yaad jeceshahay isweydii su-aasha isweydiintale waxay tahay cid walba ilaahay waa jeclahay wuu dhihi karaaye laakiin inaad ilaahay jeceshahay maxaa lagu garanaya nin walba waa sheegan karaa waa camal qalbiga ku jira laakiin maxaa ku tusaya jacaylkaad sheeganayso inuu dhab yahay iyo inuu ben yahay maxaa kala saaraya miisaanku waa kan waxaa kala saaraya markaad allah jeceshahay wuxuu jecel yahay baad ka hormarini waxay naftaadu jeceshahay markaad rasuulka ilaahay jeceshahay wuxuu jecel yahay baad ka hormarini wixii naftaadu rabtay jeceshahay markay isqabtaan oo iskhilaafaan allana sidanuu jecel yahay oo rabaa naftaaduna sidanay rabtaa ta ilaahay hormari ta rasuulka hormari sallallahu alayhi wasallam markaasaad jeceshahay allah iyo rasuulkiisa si dhab u jeceshahay markaasaad la meel noqonaysaa macnaheedu wax weeye dariiqa raac sheegasho been ah faasiq baad tahay diinta ilaahay baad la dagaalsan tahay camalkii ma haysid waajibaadkii ma gudanaysid fisqi iyo macaasi baad qasanaysaa haddana waxaad leedahay ilaahay baan jeclahay nacam haddaad jeceshahay raac qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni haddaad ilaahay jeceshiinoo dhab idinka tahay aniga nebi maxamed isoo raaca buu nabigu uhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddaad allah jeceshahay jidka nebi maxamed baad mari sal alla alay wasalam allana saasuu kugu jeclaanaya kuguna dembi dhaafaya haddaadse meelaha la taagnaato ilaahay baan jecesho maantana ku marxarado laakiin aadan camalkii iyo dhaqankii haynin beenaala tahay waxa ka jira male aayaddaasi wuxuu leeyahay xasanulbasri dad ilaahay jacaylkiisa sheegtay bay soo degtay si loo imtixaano oo la yidhahdo ka run sheega waxaad sheeganaysaa miisaankuna waa inaad raacdaane sheegasho maaha mithaalka muhimkaynu ku khatimayna wuxuu yahay ina tusaya mithaalna noqon karaya nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markuu ilaahay diintiisa u istaagay iyo tawxiidka inuu faafiyo tolkiina ka hor yimaadeen waa kuwii markii dambe inay gubaan ku talagalay god bay u qodeen guri dabay u dhiseen inay ku tuuraan bay ku talagaleen ilaahay baa ka badbaadiyey nebi ibraahim inuu dhulkaa isaga tago ka haajiru go'aansaday innii muhaajirun ilaa rabbii waa isaga tegayaa dhulkan buu nebi ibraahim waa keligii calayhi salaam waana carruurna male waana weynaaday markuu dhulkii ka soo tagay ilaahay wuxuu weydiistay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ilaahayow waxaad isiisaa wiil dulqaad badan isii allah waa u bishaareeyey waxaa loogu bishaareeyey
wiilkii uu weydiistay dulqaadka lahaa baa ilaahay ugu bishaareeyey wiilkii waa dhashay waa nabi ismaaciil ibraahimna markaa waa da waana wiilkii ugu horreeyey waana keligii u fiirso markaad adoo da carruur hesho iyo markaa adoo dhallinyaraa carruur lagu siiyo way kala muhiimsan tahay markuu ilmihii u horreeyey yahay iyo markuu kii labaad iyo kii saddexaad yahayna waa kala muhiimsan yahay markuu hal ilmo yahay iyo markay carruurtu badan tahayna way kala muhiimsan tahay waa da waana ilmihii u horreeyey waana ilmo keligii waana wiil nabiyullaahi wiilkii marka la siiyo uu gaadhay barbaaray aabbihii inuu raaco la shaqeeyo hawl qabta bilaabay ayaa ilaahay u waxyooday nebi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam waxaa riyo loogu sheegay riyada ambiyaduna waa waxye ibraahiimow wiilkaaga keligii ah gowrac baa layidhi ilaahay dartii u bixi gowrac oo yaa yeeli laha miyay kugu fududdahay waa ilmahaagii waa beerkaagii waa keligii waa curadkaagii wax kale ma haysatid adaa gacantaada ku gowracaya gowrac baa layidhi nebi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam wiilkiisii ismaaciil buu u bandhigay wuxuu yidhi aabbo waxaa la ii waxyooday inaan ku gowraco allah baa ii amray maxaa samaynaa wiilkaaba ka sii cajab badnaaba wuxuu rabbiyow soo kuma aabba soo rabbi kuma amri nin adig gowracda haa fuli amarka ilaahay buu yidhi i gowraca nebi ibraahim wiilkiisii dhinacuu u dhigay mindidii uu ku gowrici lahaana waa qaatay inuu gowraco ka takhallusana waa ku talagalay amarka ilaahay isagoo fulinaya waxay naftiisu jeceshahay ka hormarinaya kadib baa allah tabaaraka wa tacaala wiilkii wuxuu madax furasho uga dhigay booskiisii baa ilaahay wuxuu soo geliyey wan weyn markaasaa isagii buu gowracay nebi ibraahim wiilkiina waa la furtay imtixaan bay ahayd ujeeddadu ma ahayn in wiilka la gowraco laakiin nebi ibraahim baa la imtixaanayey heerka uu gaadhsiisan yahay jacaylkiisa rabbigii uu jecel yahay ismaaciil baa la imtixaanayey heerka uu gaadhsiisan yahay isaga laftiisu allah si jacaylkiisa iyo siduu amarkiisa u fulinayo sidaas daraaddeed naftaadu waxay rabto allah wuxuu rabo markaad hormarisood ka hormariso naftaadu waxay rabto si kasta ha kuugu weynaadee markaasaa jacaylkaagu dhab yahay si kasta ha kula cuslaado sidaas daraaddeed cidda aad jeceshahay baad la meel tahay dib ugu noqo qalbigaaga ismiisaan yaad jeceshahay yaad la jirtaa yaad garab u tahay yaad u hiilisaa yaad isla jirtaan mar labaad iyo mar saddexaad dib ugu noqo waxaadna ku tala gashaa halkaa waxa yaalla ayaa maalinta qiyaamadu natiijadu tahay sallu wa sallimu calaa khaatam